madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka gaashaandhigga taliyaha koowaad ciidanka booliiska taliyaha labaad taliyaha ciidanka asluubta hogaamada qaybaha komishinka guddiga komishinka ciidamada qalabka sida xubnaha halkan ka fadhiya qaybaha saraakiisha kale ciidan weynaha halkan taagan maanta tababarka loo xirayo oo laba qaybooda dafcadii 9aad ee ka soo baxda dugsiga tababarka lixle Madheera iyo koox muddo dheer imika lagu bareeyay baarista dambiyada oo iyana halka jooga mudane madaxweyne waxa maanta farxad weyn oo inaad nagala soo qayb gasho laba munaasabadood oo xiritaan tababaro ah ciidanka tababarka asaasiga ah ee dugsiga lixle Madheera soo dhameystay oo dafcadii 9aad kuwaas oo ku baranayay nidaamka ciidanimo shuruucda kala duwan ee dalka ciidan la barayay dambi baarista iyo xeerarka kala duwan ee dalka kuwaas oo muddo uga socday tababarka xarunta taliska guud ee aynu maanta ugu xidhayno waana markii ugu horeysay tira inta leeg oo baarayaal cusub oo xirfadda baarista la baro mudane madaxweyne ciidanka booliiska ku soo biiraan mudane madaxweyne waxaan oran karaa ciidanka booliisku waa naftood hurayaal har iyo habeen heegan waa ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada mudane madaxweyne waajibaadka koowaad ee ciidanka booliisku waa ilaalinta amniga gudaha ee dalka iyo difaaca qaranka waxaanay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimadeena waxaan kalsooni buuxda ku qabaa mudane madaxweyne ciidamada maanta tababarka loo xirayaa inay si hufan u gudan doonaan waajibaadkooda loo igmaday ee ilaalinta amniga iyo difaaca qaranka mudane madaxweyne horumarka ugu weyn ee ciidanka booliisku ku talaabsaday waxaa ka mid ah waxaa saraakiisha ciidanka booliiska ee taliyaha saldhigyada waxaa dhacday in dhammaantood la isugu keenay dugsiga tababarka Madheera oo ay tababar ku qaateen taasoo ay ka faa'iideen marka koowaad isbarasho waayo milowiyacado ilaa dhahar isma aqoon laakiin muddadii halkaa ku jireen oo shuruucda iyo hogaaminta leadershipka labadaba ku qaadanayeen ayay ahayd mudane madaxweyne dugsigu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah qaybta tababarka asaasiga police based training iyo qaybta kuulada saraakiisha oo hadda lagu qabto xirfadaha gaarka loo tababaro ciidanka booliiska waxa kale oo ka mid ah talaabooyinka aanu qaadnay kor u qaadista dhinaca aqoonta baarista oo lafdhabar u ah shaqada ciidanka booliiska waxa hadda hortaada taagan baarayaashan oo maanta ugu soo gabagaboobay tababar muddo halkan uga socday waxa kale oo kuuliyada ciidamada qaranka ee darajooyinka Cabdullaahi askar ku jira hadda 20 sarkaal oo u badan jaamiciin waxaana loo qorshaysan in dhalinyarada jaamiciinta ee booliiska ku soo biiray la baro leadershipka iyo maamulka si ay uga qayb qaataan hogaaminta iyo hawlaha qaranka iyo hogaaminta ciidanka booliiska qaar badanna waanu barnay waana ku shaqeeyaan hadda ugu dambeyn mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka xafladan iyo sidaad u garab taagan tahay ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha dugsiga macallimiinta iyo ciidan weynaha maanta halkan loo xirayo ee si fiican tababarka u qaatay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh